بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إلهي يكون سبحانه عز وجل نوض كل سيء دب نسكي سعليي نسكو كيني الله سبحانه عز وجل. الحمد لله. ما حضرني الله يوسق ناتي سبحانه وتعالى mar labaad mar saddexaad ka badan waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciyaartooyda, caruurta waqtigii hore iyo kuwa hadda ee ku abtirsata team Sheikh Saalax team sida wanaagsan hagarsho la'aanta ah ay uga qayb qaateen soo dhaweynta walaalkeena, wiilkeena, saaxiibkeena Cabdiqadar Maxamed Maxamuud. dhammaan waa ku mahadsantihiin, aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin. si qaasi waxaan ugu mahad celinayaa wiilashayga Dr. Cabdicasiis Cismaan Jeelaani, أحمد أبرون محمد علي عبد المكين، أحمد شعالي ورسمة شفشانجو، يلمان عيرتويدا عبد القادر لود كيسا يكوي كيراي لمان يبيحي كدنبي saasoo kale waxaan u mahad celinayaa gudoomiye Cabdullaahi Faarax Cismaan, kabtankeygii igu horeeyey iyo gudoomiyaheygi igu sharafta badnaay ee qaaliga igu ahaa. aan uga baxo dhammaan guud ahaan waa idin wada salaamayaa. Cabdiqadar Maxamed Maxamuud Carabey, noo soo dhawow dadkaadii iyo dalkaadii iyo saaxiibadaadii, qaraabadaadii iyo ehelkaadii dhammaan waa kusoo dhaweynayaan maasha Allah. anigoo ku hadlaaya dhammaan bahweynta kubadda cagta khaasatan team Sheikh Saalax, halkan waxaan ugu mahad celinayaa Cabdiqadar. aan kusoo dhaweynaynaa maasha Allah xaflad soo dhaweyn ah, qiimo iyo qadarin leh, muggeeda miisaankeeda aan la qiyaasi karin ayaa shalay waxay ka dhacday magaalada Muqdisho, xaafadda degmada Waaberi, garoonka Macquul Stadium, oo si aad loogu soo dhaweeyey ciyaaryahan legend Cabdiqadar Maxamed Maxamuud Carabey. Cabdiqadar wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii 2000 ayagoo aad u da'yar, 15 jir, 14 jir, qaarkood 13 jir ay kala ahaayeen ciyaartooydaas. dadkii lagu aas-aasay tiimka Sheikh Saalax team, garoonka lagu aas-aasana wuxuu ahaa garoonka ku yaalay Aybor ama Elaborco, garoonkaasoo lagu magacaabi jiray Lazio, kadib magaca loo baxshay garoonkii Sheikh Saalax. ciyaartooy aad iyo aad u fara badan, aad iyo aad farsamo u leh ayaa ka soo baxeen garoonkaas. garoonkii diyaaradaha ay kusoo degi jireen oo haddana ay kusoo degaan, laakiin waagaas diyaarad ma soo degeen. garoonkaas ciyaartooyda ka soo baxay aaday u fara badnaayeen. qaarkood waxay nasiib u yeesheen inay Serie A dhiilaan, national teamna ay galaan. qaarkood waxay nasiib u yeesheen ayagoon Serie A dhiilin inay qaranka galaan. Cabdiqadar ciyaartooyda wuxuu ka mid ahaa
garoonkaas ku soo baxay tiimkaas ka mid ahaa nambarka 9aadna u xiran jiray kooxda uguna ciyaari jiray nambarka 9aad ciyaaryahan style wanaagsan leh jirkiis aad u fiicnaa farsamadiisa iyo xeeladiisana aad iyo aad ay u sareeyeen oo ahaa gool dhaliya lagu xisaabtama tartamo badan oo kooxda ay ka qayb gashay ayuu kaalin weyn ka soo qaatay tartamo badan oo kooxda ay ku guuleysatay ayuu hormuud ka ahaa ciyaartooyda asiga loodkiisa ah aad ayay u farbadnaayeen waana xidigahan aad hadda arkaysaan ciyaartooyda nasiib u yeeshay national team inay galaan Serie A dheelaan ayaa waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanada Maxamed Cali Makiin oo isla markaasna naqday xibin ka mid ah xiriirka Soomaalida kubadda cagta ilaa haddana ah darajada kaaliyo xogeeye naqday ma sha Allah ciyaartooyda nasiib u yeesheen inay qaranka Soomaaliya matalaan oo ka soo baxay akademigaas ama aasaaskaasi oo basinka oo ugu hooseeyay ma mashruucaas tiim Sheekh Saalax مصطفى حسن محمد مصطفى تيستو سيدي محمد عمر فارح علي بيلي دكتور محمد إينو دكتور عبد العزيز عثمان جيلاني كابتن شريف فارح حيلي أحمد موليد عبدي أويس محمد الشيخ waxaa kaloo ka mid ah ciyaartooyda waqtigiisa Ibrahim Cabdiraxmaan Maxamed Ibrahim Daacad oo runtii haliyey weyn ahaa kaalin weyn ka lahaa tiim Sheekh Saalax cajiib ah waxaa ka hadlay ciyaartooyda dhammaan qof walba sida uu arko soo noqoshada Cabdiqadar ciyaartooy aad u fara badan ayaa ka wada hadleen uguna mahad celiyeen soo noqoshadiisa iyo isku imaatinkiisa maxaa yeelay ma aysan dhicin in sidaan oo kale ciyaalka iskugu imaadaan markii la kala tagay kadib ما شاء الله عبد القادر ciyaartaas ayaa waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan una xamaasad badan ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay barbaro 6-6 ah laba ka mid ah waxaa dhaliyay Cabdiqadar goolasha gabagabadii ciyaarta waxaa mahad celin iyo ciyaarta ka hadlay dhammaan ciyaartooyda qaarkood iyo sidoo kale gudoomiye Cabdullaahi Faarax oo soo jeediyay amaan sida wanaagsan ay u ciyaareen ay isku xilqaameen ay u soo dhaweeyeen walaalkooda saaxiibkooda Cabdiqadar ay u soo dhaweeyeen saasoo kale waxaa ka hadlay ciyaaryahan Mustafa Xasan Maxamed Mustafa Testo oo runtii hadallo kooban ka soo jeediyay hadalliisna waxaa ka mid ahaa حسن محمد أهنا ciyaartooydii ka soo baxday akademiyada macallin Sheekh Saalax oo ku soo bilaaway tababarka 2000 ayagoo yaryar oo ilmo aan ugu soo bilaaway macallinka khayr Allah siiyo meeshii ugu dambeysay oo laga gaaray footballna waa ka gaarnay dadaalkiisa iyo juhdiga iyo waqtiga uu nageliyay ku gaarnay heerkaas ilaahana ma hadda iskale kasoo waxaan mahad celinaa macallin Sheekh Saalax saaxiibkeen Cabdiqadar oo kamid ahaa dadkii aan isla soo bilawnay jiilkii macallin Saalax aan isla soo bilawnay tababarkii kamid ah waqtigii 2000
oo dibadaha naga aaday hadda dib noogu soo noqday aan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay mar walbana waxaan jecelnahay qof walba anaga nagmada dalka ha jiro dibadda ha joogo inuu macnaha mar walba isku imaano aan samaysano barnaamijyo noocan camal ah si aan macalinkeena ugu farxino qof walba oo heer gaaro footballka ka gaaro oo Sheekh Salah teamkiisa kamid ah waxa laga rabaa inuu macalinkiisa ogaado oo la socdo qasab ma ahan inaad wax siisid macalinkaada waa inaad soo salaantaa waa inaad soo booqataa haddaad ka gaarin taleefana jiro waa inaad macalinkaada taleefankaada aad isticmaashaa soo wacdaa aad salaantaa waana mahadsantihiin ما شاء الله هذا ما صنته برافو ugu dambeyntii waxaa ka hadlay farxaddiisa asoon soo qiyaasi karin aan soo koobi karin ciyaaryahan cabdiqadar maxamed maxamuud oo u mahad celiyey dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo dadka xafladda soo qaban qaabiyey oo ugu horeeyey macalinkiisa macalin saalax sidoo kale wuxuu u mahad celiyey gudoomiye cabdullaahi faarax cismaan oo kasoo qayb galay soo dhaweyntiisa liketa iyo sheerka waa dhinaciina